وأرين يابله طبعا سوشيال ميديا مالمihii ugu dambeysay waxa ku soo badanayay in la yiraahdo heblaaya ayaa muuqaal laga duubay dabcan sidoo kale iyo heblaaye kale ayaa muuqaal laga duubay bilowgii koowaad ee muuqaalka duuboogu waxa uu ka soo caan baxay ama uu ku soo shacbaxay ayuuna qurux oo ahayd gabadh ka caana baraha bulshada ama qaybta TikTok sidoo kale Instagram-ka iyo gebi ahaanba social media ugu dambeyntiina waxa ay isugu soo biyashatay haboon dabcan oo ah iyaduna gabadh baraha bulshada ka caana ama haboon maxamed sidaa u taqaano ugu dambeyn waxa muuqaal laga duubay Huda Amuun oo ah dadka jirkooda ku soo bandhiga barta TikTok iyo dabcan sidoo kale Instagram-ka haddaba gabadhan ayaa ah gabadh nin qabo dabcan sidoo kale ma sheegi karno ama ma shaacin karno muuqaalkan inuu xaqiiqatan iyada yahay balse baraha bulshada boqolkiiba 70 waxa loogu hadalhayaa inuu muuqaalkan Huda Amuun yahay dabcan sidoo kale ninkuna oo iyadu caadi ahaan uga duubayso haddaba gabadhan ayaa suurtagal noqon karta inay muuqaalkan iska duubtay sababtu waxa ay tahay ninka qaba iyo iyaduba saam ayay ku yihiin baraha bulshada ama social media dabcan waa dadka noloshooda dhabta ku soo bandhiga baraha bulshada sidoo kale dabcan waa dad gabadh isqaawisa badan ah jidhkeeda sidoo u dhan yahayna keenta baraha bulshada haddaba daawadayaal gabadhan ayaa noqonaysa gabadh ku soo bandhigta barta TikTok jirkeeda ugu dambeyn dabcan waxaan boqolkiiba 70 oran karnaa muuqaalkan waa laga duubay si kale markaynu eegnana dabcan muuqaalkan ma oran karno nin ayaa ka duubay balse xaqiiqatan qofkan halkan aan ku soo dhaafnay waxa weeyaan waa qof isagoo muuqaalka iska duubaya gabadh ah waliba oo ninna xaga dambe kaga jiro haddaba daawadayaal Huda Amuun ayaa ah iyadu qof dabcan baraha bulshada waxa ay doonto ku soo bandhigta jirkooda qaawan waxa ay doonto iyadoo ka sheekanaysa iyadoo iyo team ay isku duubnaan jireen ayaa waxa ay bartooda Instagram ka soo gali jireen live iyada iyo amal dheemin gabadh la oran jiray dabcan sidoo kale gabadhii dabaqa iska soo tuurtay baraha bulshada iyaduna caanka ka ahayd iyo gabadh kale Savannah September leedah haddaba daawadii 4 dumar ayaa ahaa 4 dumar oo dhaqanka Soomaalinimo ka baxsan waxa ay baraha bulshada ku soo baahinayeen isku soo wada duub dabcan muuqaalada la iska duubay ayaa noqday qaar gabi ahaanba lagu soo baahiyay social media iyadoo bilowgii koobaad ayuuna qurux oo ahaa muuqaal dabcan lala gaaday ama sidoo kale shaydaan iyo mobile ay ka dhaxadeeyeen haddaba daawadayaal Huda Amuun ayaa caadi dabcan muuqaalkan aan boqolkiiba 70 oran karnaa waa laga duubay sidoo kale dadka social media wax ku soo galiya ama barta social media Facebook ama YouTube ahaado waxay ku sheegayaan ama ay shaacinayaan in Huda Amuun boqolkiiba 70 ay dabcan ay leeyihiin waa Huda Amuun haddaba daawadayaal Huda Amuun ayaa ah iyadu qof waxaan aanu jixin barteeda Instagram iyo sidoo kale TikTok-na ku soo baahaysa muuqaalada noocana iyo muuqaale ka gadisan haddaba daawadayaal muuqaalada ay boqolkiiba 70 ku soo baahayso barta TikTok ayay yihiin muuqaalo badana qaawan tahay dhaxda caloosha iyo gebi ahaanba jidhkeeda kale iyadoo ay dabcan marka ay ku soo duubto codad ama hadallo ay ku soo duubaysana ay hadalladaas yihiin qaar lidi ah dabcan sidoo kale anshaxa dumarnimo dhaafsiisan sidoo kalena dabcan dumarka ama gabi ahaanba dadka social media ku xiran ay u yaqaanaan gabadh macni iska hadasha ama qof sida dhimatay oo kala haddaba gabadhan barteeda TikTok waxay ku soo baahaysaa codadkaas oo ay kaga waramayso dabcan waxyaabo aynan afkeena soo marin karin balse xaqiiqatan aad adiguba garan karto marka TikTok-teeda gasho waxa ay bartan ku soo baahayso haddii la barbar dhigo videogan iyo waxa ay TikTok-teeda ku soo baahayso dabcan waxa ay TikTok-teeda ku soo baahayso ayaa boqolkiiba 100 ka xun haddaba daawadayaal gabadhan ayaa ah dabcan gabadh barta TikTok caanka ah iyo social media kaleba haddaba bariyo dhaweytol ayaa waxa jirtay live ka soo gali jireen bartooda Instagram iyagoo ay waxa ay doonaan ka hadli jireen cid ay doonaanna personality ku sameyn jireen haddaba bal gabadhan daawasho wanaagsan muuqaalkeeda dii la barbar dhigo muuqaalada ay ku soo baahayso barteeda TikTok gabadhan dabcan waa wax la caado ah ama wax iska caadiya muuqaalkan marka la barbar dhigo muuqaalada ay TikTok ku soo baahayso iyo dabcan waxa ay ka sheekeynayso xaqiiqatan waxa ay kaga hadlayso TikTok-teeda haddaba daawadayaal gabadhan ayaa gabadh baraha bulshada ka caana
بريه معني وقتية دويدنا قبستي سوشيال ميديا هدا أمون waxay ka mid tahay dadka ay YouTube-ka ku badnayn balse social media kale ku badan hadii ay noqoto Instagram iyo hadii ay noqoto TikTok hadaba TikTok-ta ayay ka haysataa dad boqolaal kun ku dhow dabcan ama dhowr boqol oo kun oo followers dadkaasina waxay ku dhiirigeliyaan dabcan xumaanta iyo waxyaabaha ay ku soo baahinayso barteeda TikTok hadaba sidoo kale Instagram-keedana dad 300 kor u dhaafaya ay waxa ay ku haysataa oo followers TikTok Instagram-ka dabcan dadkaasina waxay u dhiirigeliyaan xumaanta ay ku soo faafinayso dabcan ha ugu badnaadaan ragga Soomaaliyeed iyadoo ay la qabo oo loo og yahay in carruur u dhashanin dabcan ninka qabayna kalama hadlo badana arrimaha social media dabcan ninka qaba waxa lagu magacaabaa Sharmaarke waxa uu kamid yahay isaguna dadka social media ka cadcad markii ay hudaamun ku soo biirtay social media waxa dabcan mu ahayn qof la aqoonay balse gabi aanba social media markii gabadhan ku soo biirtay waxa ay keentay social media ninkeeda balse ninkeedu ma aha nin dabcan u baariya ay u baari tahay dabcan sidoo kale isaguna hadaba daawada labadan qof ayaa carruur isu dhalay balse yihiin dad social media labaduba ka qaraabsada iyadoo ay barteeda Snapchat iyo sidoo kale TikTok Instagram ay ku soo baahinayso jirkooda oo qaawan dabcan waxana ay la tahay wax caada sidoo kale isaguna uu yahay daawadayaasha kamida taarabuunkeeda dabcan aanu la hadal waxbana aanu ku dhihin ama aanu ku dhihin isastur dabcan beritoole waa la dhiman doonaa sidan ayaa dhici doonta hadaba gabadhan ayaa ah gabadh ay waxaan la caadan yihiin banaankana iskeentay hadaba daawadayaal gabadhan dabcan waxba lagama qaban karo iyada iyo social media-heedaba qofkii alla hadeeyay ayuunba hadaysan hidaayada alle subxaanahu wa tacaala ayaa gacantiisa ku jirtaa ma odhanayno alle subxaanahu wa tacaala muxuu soo hadeyn waayey balse alle subxaanahu wa tacaala isaga ayay u taallaa waqtiga uu hidaayada tusaayo iyo waqtiga kaleba kolley dabcan waa qof social media la ciyaara nolosheeda dhabta aana social media ku soo bandhigta hadaba muuqaalkan ayaa noqonaya muuqaal isaguna baraha bulshada ku baahay 70% loo maleynayo inkastoo wajiga muuqaalka xaqiiqatan labada qofba uu qaawan yahay balse jir ahaan waxa loogu eegay gabadha dabcan halkan sawirkeedu ka muuqdo ee hudaamun leeraa daawadayaal wad ku maasantihiin kamid ahaanshaha iyo kusoo biiritaanka channelka Mera Films waxaan rajaynayaa inaydin sida ugu dhaqsiyaha badan 100 subscriber noo sii doontaan balanteenu waa hadaba subscribe-ta iyo dabcan sidoo kale inaad muuqaalka sii like gareysaan oo idin sii share gareysaan oo la wadaagtaan asxaabtiina iyo sidoo kale muuqaalka inaydin dabcan like saartaan It's harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a move.